wayga qarare ma ima taqaaniin waxa aragtana noo sheekeynaya ama warun akhriye dhakhtar baan caawa noqonaya iyo maanta dulqaadkeeda yeesha haddii ku adkaatana biyo iskaga dajiya waxaan ahay dhakhtar waliba diriweynaya dadka ilaahay caafimaad ha siiye yara saaloon ee xanuunsanaya waa kuwa aynu nahay waa waalayihiin dadkaasi ama guud ahaan dadkuba inteena isla waafayoodan xitaa iyo kuwa aad u xanuunsanaya waa lala wada faqa waxaa la faqa 5 nin waa abu shanad dacweyne nagnagle namiimiye iyo weyd ninka shantu ay ku dhayihiin ilaahay caafimaad ku siiya waa ragga biraha sitee magaalada maraya ee iyagu jaqaafiyey ee rag iyo dumar bale inteena kala dharka sidana ee isku tirina fayoobida lagama maqle qaarkeen 3 baa la faqa qaar 4 baa la faqa qaar 2 baa la faqa qaar mid baa la faqa astaamaha lagu kala gartana waxa ka mid ah marka ay yimaadaan dadkaasi waxaan weydiiyaa miyaa lagugu dhanyahay macnaheedu waxa weeyaan 5 miyay kula faqaan hadday 5 la faqaan xaaladiisu way fogtahay haddii 4 ama 3 ama 2 waa kuwa maydha calaamadaha lagu kala gartaana waxa weeyaan ragga la faqa waa duulashaas ilaahay naga hayeen abu sanad ninka uu la faqa waxa lagu gartaa wuxuu ilaa dadkay ugu wanaagsan reerkayaga yaa mudane wax la taraa qoyskayaga yaa aqoon la magacaaba inankayaga waa abu sanad wuxuu ku beeraa inuu dadka isugu wanaagsan yihiin daaca weyne ninka uu la faqa wuxuu ku ilaa xilbaad mudan tahay waa in wasiir lagu magacaaba adiga cidaan ahaynoo maanta halkaa qaban kartaa ma jirto shandaduu sitaani jir suudkiisa u xidhan jaraa'idka iyo telefishinadu intaa ka dhurmaya makhaayadahu ka cabanaya har iyo hameen wuxuu sheeganayaa inuu yahay ninkii la magacaabi lahaa isagu waa xildoon daaca weynaa ka dhaadhiciyeed uu yidhaha soco ha ka hadhin ilaa dasho saasuu ku quluusaa kaasina nin haddaba ka mida ragga lala faqo oo 5 mid ka mid uu ku weeyahay ayaa maalin ka soo raacay bas oo iska danyara ayaa goorfiida bas wuxuu ka soo raacay heegada jigjiga yar buu socday markuu marayo isbitaalka ee uu ka dhaqaaqo halka dadka sii qaaday ayaa namiimiye waa raggii nin ka mid ah soo fadhiistay oo uu doqon haray awal baa coobaadahay war baskani biibsigu socda biibsiga lacagtaadina waa bixisa inta goortahay lacagtaada ka qaado ninkii baa irkaa u booday war si lacagteeda waa biibsiga u socotaan dadka waa qaldaysa jigjiga miisaan nasiya lacagteeda rakaabkii baa la hadlay inankii lacagta guraya la hadlay darawalkii baa la hadlay miyuu maqlayaa namiimiya dhigta afka ugu haya oo la ku mitid xaqa ha maqlin tuugta qaada lacagtaada biibsigu u socdaa markuu qayladii diin waaya markii dambe labadiisa ku lisiyo baskii baa laga tuuray markuu ka digay ayaa waxa soo fariistay weyd oo qosliya oo yiri doqon ma namiimiyaad maqashay balaag baska baagleerkiisa soo baartay waa ka jigjiga yartagay imsa kula faqa mii ku dhanyisanto ma 3 ba ma 2 ma mid ba ila soo xidhiidha wajiga